تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. cilmiga iyo faa'iidooyinka uu leeyahay iyo jahliga iyo dhibaatada uu leeyahay waxa la isku hayana waa inaan cilmiga la fahmin siraacan hadda socdo in kitaab iyo sunna aan la fahmin buu dagaalka ka socdaa hadii laakiin si khaldan aad u qaadatana xabad lagu guma ridayo hadaad iska daysana xabad lagu guma ridayo waayo Bashiir Ahmed Salaad iyo kii indhaha laayo magac lahaa Baaruud iyo nimankan hadda garow fariiso tirada badan iyo cilmi la'aan ma haysan laakiin maxaa ku dhacay fahmi la'aan ba haysan cilmigi bay fahmin kafa bil ilmi sharafan an yad'ihi man la yuhsinuhu cilmigi inuu iska sheegto qof aan garanayba way yafraxa ida nusiba ilayhi sheekh hebel uu dhool cadeynaya markii la sheekh hebel Abdullah Yusuf baa wuxuu soo galay madrasa ku taalay gaalkacyo aawu nimankii halkaan dhigayo wahaabiyada lagu sheegay waxaan tarbiyada iyo kitaab soo qaaday Carabiya mahmah Carabiyad baa waxay ahayd buu goob joog baan ahaa wuxuu mahmah Carabiyad baa waxay ahayd alam tara kayfa faala qofkii cilmiga ku sabra oo waxa weey dulqaad u yeeshay inuu barto soo kalaha oo waxa weey u rafaado oo wax walba dhibaato u maro yadfar binaylihi wuu gaaraya maalinta dambe sheekh hebel gabar isku aadan oo reer korsan hadaa doonaysana ومن يخضب الحسناء يصبر على البذل شافك قعنت قلي ما العلا لقى قاعدا ميه شافك قعنت لقلي تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. cilmiga iyo faa'iidooyinka uu leeyahay iyo jahliga iyo dhibaatada uu leeyahay waxa la isku hayana waa inaan cilmiga la fahmin siraacan hadda socdo in kitaab iyo sunna aan la fahmin buu dagaalka ka socdaa toogtaday kitaab iyo sunna isaga tagaan xabadi kuma dhacayso hadii laakiin si khaldan aad u qaadatana xabad lagu guma ridayo hadaad iska daysana xabad lagu guma ridayo waayo Bashiir Ahmed Salaad iyo kii indhaha laayo magac lahaa Baaruud iyo nimankan hadda garow fariiso tirada badan iyo cilmi la'aan ma haysan laakiin maxaa ku dhacay fahmi la'aan ba haysan cilmigi bay fahmin wa kam min caayibin له قول صحيح صومين وآفته في فهم السقيم marka cilmiga la baranayo waa cilmiga sharciga oo masaajidana ka baxayo jaamacaadka iyo meelaha la midka ana ka baxayo asalna waxa uu cilmiga al-halaqi fi al-masajid asal cilmigu waa midka masjidka yaalo nimanka soo marina ka waxba kama dhamayo waxbana kama qaadayo cilmiga asalka waa cilmu al-halaqi in la soo qaato culimada la hor fariisto cilmiga ku anfacayana waa cilmiga ma akhadta min afwaahi al-ulama harfan wa tadbiqan حرفك سوى بحيين أد مقاشيد تطبيق وشيقة بحينيين من القادة علمك شرفتي شيقة كهالي لقمت بهالي لكن دينه علم وشرف لي وحال هذا أثر إذا هذا عليم وضارب على جسوا جوريا نووي مجموعة يكسوا أروريا كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه علمك إنه إسكشف تقفى جرنيب ويفرح إذا نصب إليه شيخ قبل ودول عطينا يا مركل يا شيخ قبل وأنا وما إنكجنا وحماهين وحوا هي ملك لكن ودول عضينية كفى بالعلم أن يدعيه من لا يحسنه نكاد مجلس هذا أوير توحى لجيا باين وحوا كوحنا شيخ قبل هذا ترى أنا قعنت كوتا جيا وحنا ما هي عبد الله يوسف باوح صوق قال مدرسة كتالة قال كعيو أو من منك هالكان ديجا وهابية اللي شيء وحال تربية كتاب صوق على عربية مهما عربية باوحي هاد بير قف شوق بانها وتر مهما عربية باوحي هذا ألم ترى كيف فعل من لو سعودي بايري ما يملح وين وآيات قرآن كبسي في عن واب قرآن بين كبسي في عن واب قرآن كهذا مركو حليه الشيخ ابن الدين لأنه كفر حسيه فرك أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا نصب إليه وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه قف أسوق جاهل إلا يرى هذا وحوي جاهل باتان وقلين وهذا يهيب جاهل مرك هذا ما لو مات نونس بيه وحفا إذا مكاني مرك علمك هي برشدي سيفضي ولي ورالك أخونا maalmaha nasaga lagu dul akhrinay sheekhan ugu gabagabeeyay sabir iyo dulqaad baan lagu gaaraya ilaahay oo loo kaalmaysiyo daacada ilaahay subhanahu wa ta'ala wixii loo sabrana waa la gaaraa wa man yastabir lil ilmi yadfar bi naylihi wa man yakhdi bil hasana'a yasbir ala al badli wa man lam yudilla nafsa fi talab al ula yasiran ya'ish tahran tawilan akhadhuli wa man yastabir lil ilmi qofki ilmiga ku sabra oo waxa weey dulqaad u yeeshay inuu barto soo kalaha oo waxa weey u rafaado oo wax walba dhibaato u maro يظفر بنيله وجارية ما أنت ضم الشيخ قبل يجوز ولا يجوز بعد جارسة مثلا لو ويدي يجوز سيد ابن باز يجوز ولا يجوز يظفر بنيله
gabar isku aadan oo reera korsadeen hadaa doonaysana waman yaqdi bil hasnaa yasbir ala badli jaafka gacanta geli meel cidla laga qaadan mayo jaafka gacanta la geliya xoolo badan waa inay ka baxaan xoolo badan ay waman lam yudilla nafsa fi talab al ula naftiisa qofkan ku dulaynin oo meel sare gaaralayo oo meel himigiisa uu sareyn yasiran waliba waqti yar ya'ish dahran tawilan akhadhulli soo dhulli waliga ku noolaanaya halkaas joogaya athar waxa jiro uu soo guuray ibn Jamaa'a al-Kinani al-Shafi'i kitaabka tadhkiratu saami' uu ka soo guurinayo oo imaam Shafi'i loo tiiriyo imaam Shafi'i wuxuu leeyahay laysa al-ilmu ma hufida al-ilmu ma nafa'a sheekh hebel baan حدثنا وكيل hebel sheekh hebel maya ilmigu ma hanbuli waxa la xisiyo wax tira badan oo la arursado laakiin wuxuu leeyahay al-ilmu ma nafa'a wixii ilaahay uu kugu anfac man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din marka ayo ikhwa naftaydeetiina waxaan u dardaarmayaa maadaama la isoo isaajib waxaan leeyahay insha Allah walaalihi hawsha soo agaasimeen Allah barakeeyo jazaahumullahu khayran waan kaga mahad celinaynaa ka dalaba ahaana waxaan leeyahay insha Allah cilmiga iyo fawaa'ida iyo barwaaqada iyo walaalaha barnaamijkana la garab taagan yahay culimadu waxay leeyihiin jihaadka iyo markuu socdo dagaalka siraaca lagu jiro waa laba meelood laba qaybood buu u qaybsamaa bay yiraahdaan as-sayf was-sinaan wal-hujjatu wal-bayaan as-sayf was-sinaan rag baa ku maqan oo laga yaabo furumaha inay hadda galabta xabad dhacayso rag hayaan nagana cilmiga waan u fadhinaa Soomaa wal-hujjatu wal-bayaan inaan tanqiinino oo waxa weeye sugno oo aan baranno insha Allah wax loo baahay cilmigu soo nagaga bixin ilaahi dartiina hanaga ahaado haday hadafkeenu yahay waraaqda qaadataan in baa laga sheegay baadi baan doonayo waxna waa iyo weheliyeen baadina waan raasanayay gabdha raasna waan haabi waxbaan indaynayo meelahan marmaray baadina waan raasanayay anagu marka waraaqna waan raasanayay waraaq meeshan aan ka helno waa rabnaa cilmina waa rabnaa insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala